magaaladan ma aragtay aan aniga ku noolaa waxay ahayd magaalo aad doogeeda u qurux badan yahay weliba ubax aad u qurux badan ayay lahayd weliba ubaxa la dhaho rooska ubaxa rooska la dhaho aniga aad ayaan u jeclahay magaaladan aan ku noolaa aniga aad ayaan dhibaatooyin kala kulmay xanuuno badan ayay dareensiisay laakiinse waxaan ku qasbanaa mar walba xanuunkaas in aan u dulqaato oon haddana geesi noqdo xanuunkan aan annaga marayno cid fahmi karta ma jirto magaaladan aan ku noolahay aniga dhibaatooyin badan ayaan kala kulmay xanuun badanna waan maray laakiin waxaan ku qasbanahay geesi in aan iska dhigo maxaa yeelay aniga dhacdooyin badan ayaan ka bartay magaaladaneete sidaas darteed ayaan aniga geesi iskaga dhigaa waan xafladda caadi iska taliya oo usbuuci la dhigto anigu waxay la tahay 20 ama 25 qofood ay xalfadaas joogtay annaga meesha uun tagnay kadibna xafladda way bilaabatay angel xafladeeda dhalashada ayay ahayd diriska iyo asxaabta runtii qof aan aqaan meeshaas ma jooginba nafiina aniga dukaanka hadiidaha la gaday ayaan tagnay waxaan ku wareernay hadiid nooce aan gadnaa hadiid marka isku qabsana saas ayaan ku soo daahnay war meedka meed oo la yaab leesba ahayb kalar baluuga isku bedeli teeda kale toomarkii meeshan la keenay dhiig badan ma ka bixin waxaa kaloo ku sheegay markii meeshan la keenay beerkiisa maba shaqeeyeenba usiga kiiskan kiis la yaab lees ahay weligii kiis noocan amalna ma arkeen aniga inta meesha aan joogo marxaladda aad ku jirto oo fahmi karaa aniga laakiin waad og tahay kiiskan waxaan rabnaa inaan hore u sii wadno nala wadaag adigan wax badan ayaad og tahay fadlan waraysigana ma sii wadanaa magacaa saaraa da'deeda sanadkaaga 32 ayaan kugu hambaleynayaa shaqadaada carruur ma leedahay saara mar alla markaad subaxaas soo kacday xaaladdiis siday ahayd xafladda annaga horta waan ku soo daahnay laakiinse xafladda mar walba waan iska dhiganaa soo maaha teeda kaleeta gabadha shaqaalaha xataa waqti dambe ayay imaatay ayada markii ay imaatayna shaqadeeda ayay iska gashay annaga waan hurdaynay gabadheeda qolkeeda ayay jiiftay teeda kale toomna fadhiga ayuuba iska jiifay asaga iyadana howsheeda ayayba iska guda gashay توم صباح وناكسن
كعياق تامي مخلص مية محكو قدعة توم 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 ككع توم شانتي hee marwo في ربلتو ما بكعو يا أسق ما قانو maxaa ku dhacan asaga ما قانو ما بكعو يورددا waa la gacan gala شانتي وكبر يا تليفون در أنا كعنا يا أسق أرونا أنت أنا جوان إسكودي إن أنك كعي لكن أسق ورددا ما بكعو يبو لكن أسق وصح سنة waayahay yaa kaloo xafladdaas joogay ترى oh soo dhowow waan dhowahay tom saaxiib ebar ترى ما أنا وحوها walaalkeen oo kaleeto mar walbana garab ayuuna siin jiray wuxuuna ahaa asaga saaxiibka ninkayga ugu dhow mar warayna waxay ahayd guddoomiyaha madiina farmatakis iyada saaxiib qaasa ayaan ahayn aniga iyada qof aad u wanaagsan ay ahayd run ahaanta dabeecaddeeda way fiicneed haay hay maanta gurigayga imaatee soo dhowow yaaqe waan dhawahay saaxiib ninkaa waa ninkayga waan ku salaamay waan kaa qaaday nabiin iyo beryaa lamaana aad isku jecel ayay ahaayeen nabiin iyo toomna saaxiibo aad isku dhow ayay ahaayeen way isku fiicnaayeen labadooda mudana fiikiina waa toom booskiisa waa nin dadka ka naxayo aad u degan haddana waa sheekaale mar kastana wuxuu jecel yahay dadka inuu ka qosol siiyo waa nin kaftan badan aniga weligay ma arkin mister fanki oo xanaaqsan asaga mar walba wuu faraxsanaan jiray hadda waxay ila tahay si tartiib wax walbo inaad uga soo kabanayso ninkaas ma la dilay mase isagaa is dilay maxaad is leedahay adiga tali arrintaasoo kale dil waa in la leexane maxaad ku leedahay sababta ay cuntada cuneen waa sumaysnaad dakhtariintana waxay noo sheegeen cuntada ii ka cunaan iyo cuntada meesha taali isku mid ina ahayd ma intaasoo keliya haa taliix khibraddeeda ciidanan waxay ii sheegaysaa ninkaas in la dilay sidee taliix anan ninkaas dhalashada gabadhiisa ay maalinkaas ku beegneed waana aabbo wanaagsan lacalla hadduu isdilayo maalinkii gabadhiisa dhalashada ay ugu beegneed ismuusan dili lahayn ee mar kale ayuu isdili lahaa waa aqli ahaan fankatiish arrimihiisa maxaad ka ogtaa ii sheeg bal asiga mambaayoo joogaa taliix shiroona leeyahay kadib markuu soo dhammaysto saaba noo imaahaya ka cabsanin nafiin wuxuu noo sheegay hal sac markii ahayd martidoo dhan inay meesha ka tageen oo haddana ay 7 qofood oo keliya halkaas ay ku hareen 7daas qofood ilaa ay 5 saac joogeen soo ma saxni haa taliye sidaa darteed tom dhimashadiisa maxaa ka leedahay inta limidan kuu sheegay tom nin xanuunsan ayuu ahaa beerka ayuu dhibaatooyin ka qabay beerka ayuu ka jiranaa 2 bil ka hor asaga dhig ayuu mantay kadib annaga waan cabsannay baqdin weyn ayaana soo gashay taliye taliye annaga maalintaas ayaan xanuunkiisa ogaanay ninkan khamri ayuu cabbi jiray waxaa macquula dhibaato inuu u keenay khamrigaas waana sababta u dhintayna saylatay taliye aniga waxaan rabaa 7 habeennimo halkaas wixii ka dhacay maxaa yeelay adigu saaxiibo isku xiran ayaad ahaydeen ma ku qaldanahay midaas taliye habeenkaas annaga xaflad aan lahayn reeshin ayaan iska cunaynay cabitaan fara badan waan cabbaynay baashaali jawi degan aan ku jirnay kadibna meeshaas waxaa imaaday briana sara iyo angela ayaa la joogtay thomas qof wanaagsan ayuu ahaa laakiin mar walba dhakhtarka waxa uu dhahay cabitaankan fara badan iska jooji dhibaato weyn ayuu kuu keenayaa asagana wuu isku daldalay oo ku madax adeegaya inuu cabo markii dambe saaraha waxay tidhi intaan ka dambe biyo ma cabbi kartid iska dhaaf asagana markaas dharbaaxashuu ku jiiday ugu dambeyn uu dharbaaxay weliba annagu meesha joogo tom adiga maxaa kaa qaldan maxaad gabar u dharbaaxaysa ii sheeg jini baa annagana dhacdaas markii uu sameeyey waan la yaabna run ahaantii dadkoo dhan runtii aaday u wada murugoodeen cid hadal dhahda xitaa waa la waayey vinkiilinka la yidhahda asaga kaftankiisuba iska sii watay angela ayuu isagana ka qosol siinayay midda kale
saara runtii aad ayay u murugsanayd nafiim ninka la yidhaahdana taleefankiisa ayuu wax ka fiifiirinayay aniga waxaan dareemay riina inay rabtay inay wax idhaahdo tom aaduu u murugaysnaa briana waxay isku dayaysa tom in ay dejiso balakoonka ayay wada taagnaan ku wada hadlaayeen ilaa iyo mise daqiiqay wada hadlayeen ugu yaraan 10 ilaa 15 daqiiqa camal ay wada hadlaayeen waan gartay ku sii soco mudana vinkina kaftankiisu meesha ka sii watay idhigaysta saxaabta nakeen hadda cunto ayaan cunaynaa anigu dhan saaxiibo adiga ilaah cabitaan ma cabaysaa maxaa kuu dhacay baarka waa xirmaan ku dhahay nakeena cashayne adiga aniga hadalkayga ma maqshid miya aniga madaxda lahay marka ku bari ixtiraam yar iyo muuji waxaan ku cabitaan wada cabaynaa boos mas'uul noqono oo cabno waayay cabitaan cabaa rabtaa Soomaa keen waa cabaa yes biryaa adiga iyo tom markaad saarnaadeen balakoonka maxaad ka wada hadlayseen degnaan run ahaantii aniga waxaan dhahay tom waxaa samaysay qalad ayay ahaayeen iyadana sidaa ula dhaqantay qalad ayay ahayd ayaan ku dhahay saas inaa ula dhaqanta maahan soo ma ogid dadka hortooda ayaa gacan ugu qaata tom weliba xaaskaaga waayo soo ma ogid dhacdadaas markay dhacday kadib aniga waxaan dhahay wax aad samaysay wax qaldan ayay ahaayeen saas inaad samaysay ma ahaynaan ku dhahay intaasoo keliya ma ahan tom iyo nafiina labadooda dhibaato ayaa ka dhexaysay midaasna waan ka hadlaynaa aniga asiga balakoonka markaad joogteen in badan ayaa wada hadlayseen tomna arrintaas ayuu ii sheegay aniga shaki weyn ayaa idinka qabaa dhacdadaas labadiinna marnaba kamaadan hadlayn waan ogaah baryaa wax kale ii sheeg igu socodsii warka aniga markii iigu horraysay tom iyo saara aan la kulmaayay laalbaag ayaan kula kulmay kadibna aniga iyo tom mar kasta subaxda waa israaci jirnay aalamiito orod ayaan aadi jirnay nafiin iyo saaraana shaqadooda way kala dugneed marka labadeena fursad ayaan isku haysanay sidaas ayaanu ku kulmi jirnay aniga isagana aad ayaan iskugu soo dhowaanay taas waaya waxa dhacay kadibna wax walba way isbedeleen arrimahaasoo dhan nafiin wax ma ka ogaa maya ilama ahan aniga birya keligaa ayaysan kula ahayn sow ma sahne taliye nafiin iyo saara arrintaa inay wax ka ogaadaan aniga ma raba taliye tom iyo adiga ma sidaas u ahaa heshiiskiinna marka hore maxaad iigu sheegaysa arrinkaa oo ma adiga ay weydiiyeba haddaa ay weydiin lahayd waa ku sheegi lahaa annaga waxaan ahayn koox yar oo isku xiran heshiisyo aanan geli jirnay weliba qandaras ayaan wada qaadan jirnay marka qaar tom iyo anigana heshiis yar ayaan wada galnay lacagahan wareegaya iyo baraanjiyadan yaryar ma waxaad leedahay waa heshiis yar oo keliya macquul maaha midda kale shirkad cusub ayaad labadiinna aas-aasteen soo ma saxni kolley annaga lacag fiican ayaan qaadan jirnay wax naga maqnaa ma jirin oo ma waxaad leedahay ganacsiga xaggayga waxba kama ah nafiin iyo tomna ganacsi yaryar ayaa ka dhexay miyaad ii raacinaysaa mudane cayaarta horta waa sidaa ka dhigato ganacsigana waa sidaa ka dhigata asna ninkaas nabi la yidhahdana aniga aadan ugu kalsoonaa wuxuu ahaa nin fiican inkastoo isla weyne yar asaga ma marka qaar ay soo geli jirtay anigana waxaa la heshiiyaa qofka keliya ee aan ku kalsoonahay sharciga ganacsigaygana waa midkaas nafiin nin la aamini kara maaha miya hoos igu dhig warka anigu mahaya carruur ninkaasna waxaa nin masir badan su'aashaada haddaan hadda u soo laabto aniga runta ganacsigayga inuu hoos u dhaca shak kuma jiro go'aankaas aan qaatana runta waan ku qaldana aniga wax walbana waa qirta aniga tom siduu noqdo marka waayahee muxuu noqon lahaa tom runta waa nin khibrad wanaagsan leh suuqa xaaladiisna waa la socdaa kor iyo hoos meeshuu aado asaga waa la socday taasna runta waa iga wanaagsanaa aniga waan hubay shakina igama jirin
maadaama tom uu geeriyooday lacagihiisa shirkadihiisa iyo wax walbuu lahaa adigaa gacanta ku dhiga soo maa maxaad ka wadda adigaa dilmaa aniga inii rabtaa isdeji kabtan sidaa kuma odhan tali ninkaas horta buuq fara badan ayaa ku furnaa markii igu hordambaysana qandaraas wanaagsan ayuu qaatay qarash badanna way ka soo gelaayeen marka anigu waxay la tahay maadaama hawshaas soo qaban waaye dhimashadiisa taas inay sabab tahay macnaha istaresinoo ku furmay dhegaysta maamula ha isku daynina wax noo sharaxdo wax walba annaga ogaanayno adiguna haaska dhiganin khatara habeenkaas qofka cashada u dalbasow adiga ma ahayn ii sheeg haa tali haddaba waxay ila tahay inaad ka war hayso tom raashinka loo keenay in sun loogu dare dhowwali waxba ha ka welwelin waa caadi middaa waan ogahay tom xaaladdiisa inay xumeed markaasna cunto kale nooca loo dalbaso kuma saxni haa laakiin raashinka turun ayaa dalbasoo maaha haa tali ma xumo qofaad ka shakisa ma jiraa gudaha wixii ka dhacay maalinkaas ma xasuusataa runtii waxaan kaloo sheegi karaa aniga ninka cuntada keenayaan arkay micnaa bannaankaana ku arka isaga say ku dhacdaa cunuga raashinka keenaya oo keliya inaad aragto turun ma isaga keliya u arkay micnaha bannaankan sigaar la istaagay si aan uga cabo marka anigoo meesha taagan ayaan arkay ninka cuntada keenayay oo soo galaya anigana waaba iska soo baxo kor ayaan iska soo aaday julaay 2013 nin lagu magacaabo ramana inuu isku dilay shirkadda la yidhaahdo mandira sooma saxni misrina tali adiga waad saxan tahay aniga wakhtigan hadda la joogo single ayaan ahay ninkayga waa kala tagnay riina oo keliya ayaa ugu wici kartaa hoo riina ninka mileys lagu magacaabo luulkaada inuu ka dhacay ayaan maqlay sanooyinna waa ka soo wareegtay sax booliskii tuugada xiriir ay ka dhexayso maahan runtaan u soo daadegno ma sidaas ayaad saaxiib ku noqoteen ii sheeg mase wax kalaa jira haa sidaas ayaan saaxiib ku noqonay qaybta caafimaadka ayaan isku baranay kadibna seminaar ayaa aadnay anigayda saaxiibo isku dhow ayaa naqanay labadeena ma labadiinna keliya mase dad kalea jiray oo saaxiibba aad tihiin ama aad noqoteenba tom iyo saara oo keliya ayaan saaxiib ahayn qof kale saaxiib mahayn okay waxaan hubaa hal qof haddii aad ka shaki lahayd dadkoo dhan inaad ka shaki lahayd markaas midda kale kiiskan aad buu u sii dheeraaday hal caddayn xataa gacanta kuma hayno haba yaraadee maxaa yeelay dhowr isbuucuu sii socdaa kiiskan taliya baaritaan haddii samayna ka waran oo san ka daran waa lagu qasbanya waa samaynaynaa laakiin waxaan ka bilaabaynaa gabadhii shaqaalaheed ee meydka toon aragtay waraysi xoggan ayaan ku samaynaynaa si wax walba noogu fududaadaan baaritaanka wiilka raashinka kenya xagguu idiin marayaa ii sheeg taliya waxaan waraystay goobta securitiga ninka haysto wuxuuna ii sheegay wiilkaas inuu ka soo jeedo talaguu meeshaasna oo shaqa leh uu imaaday wax kaloo dheeraadayna ma ii sheegin asiga lambarkiisaan soo qortay lambarkiis ilaa hadda waa wacamana iigalaaya taliya marka hore isku day orod okay taliya igraal noqo taliya ha u bixin waa caadi hore inoo sii socodsiiyey adigoo raalliya kiimikaalka annaga si fiican markaan u baarnay waxaa noo caddaatay sunta tom loo isticmaalay dhoktar xilliguu geeriyooday ma ii sheegi kartaa weliba wakhtigii loo isticmaalay waxay ahayd 9 sac ilaa 9 sac rubi ma qiyaasi kartaa suntaan waxa loo isticmaala dhaktar runtii arrintaas waa arrin la yaab leh beerkiisana wuxuu u shaqayn waayey maadaama sunta ay ahayd sun aad iyo aad u awood leh sunta jirkiisa gashay nin iska caadi hadduu ahaan lahaa run ahaantii naqaska ayaa ku xirmi lahaa taliya kollayta aniga wax kale ayay ila tahay laakiin natiijadan sugaynaa way waa sugaynaa taliya wiilka deliferiga oo cuntada keenaya waa joogaa
taliya warqadda caafimaadka ee baaritaanka tom waay tom asaga alaabihiisa yaryar haddii la taabta xataa wuu xanaaqi jiray sida saabuunta shukumaanka iyo waxyaabaha lamidka anigana sidaas daraaddeed mar walba waan dhibi jira ma ogtahay waxaan jeclaa in aan ka xanaajiyo waxyaabaha uu meelaha dhidhigtan aniga waan ka tataaban jiray mar walba sidaasaan u dhibi jiray angel iskuolkay joogta soo maaha halkan yaa kugu weheliya adiga tom reerkiisa shalay ayay baxeen iyaga oo reerkaada adigu xaggay jiraan aaw aniga anoo yar ayay ciddayda dhinteen oo am sorry waa ka xumahay shaqaalahaadaad ii sheegaysa warbixiniga siibal ahaa shaatii iyada subaxi ayay imaataa cuntada markay aanoo karis kadibna galabtii waa iska baxdaa nanama joogto taliya tom labtobkiisa iyo waxyaabihiisa kale waa kuwaan alaabta kalena waa la xirxiraya maadiga alaalaabtan haa laakiin maxaa sababi kara taleefanada isticmaalin aniga baraha bulshada ma jecli moogtahay tom iyo asxaabtiisa haddii aan la sheekaysta intaasaaba igu filanbo ma jecli dadka badanaa igraal noqda cabitaan manay keenaan idinma aana weydiinin haa inoo keen masin waayahay kaale anan iyo xafid ya ayaga sii adiga oh keen hoo mahadsanid hay keen waree qabso mahadsan keen bal noo yara imaw ya orodhe 2 saac subaxii ayuu asaga wuxuu ka imaan jiray aalamiitada guriga aniga intaan imaaninna asaga wuu maqnaan jiray waan ka soo hormar micnaheega maalinkaas aqalka yaa kaa furay adiga aniga taliya furo isbeer ayaan watay mar kastana furahaas ayaan wataa markaa guriga ka tagaba ayadoo la jooginayaan imaadaa waan iska furaa waana galaa laakiin maalintaas way joogeen hurdada ayayna ku daaheen ayaga anigana sidaas ayaan guriga ku soo furay waana soo galay gudaha markii aan u soo galay waxaan arkay marwada oo qaylinayso mudanahana kursiga ayuu ku jiifay asaga shanti asaga maba soo kacooye maxaa ku dhacana ma aqaano dabeecad noocee ah ayuu mudanaha marwada kula dhaqmi jiray taliya mudanaha aad ayuu u fiicnaa xaaskiisa wuu jeclaa gabadhiisana wuu jeclaa ayagana aad ayay isku jeclaayeen hagaag waa gartay oo haddama waxaad naga dhaadhicinaysaa marnaba labadooda xanaaq muusan dhex marin wax dhibaataana kuma aan maqal maya mudane sidaas kuma dhahaay laakiin mudane tom asaga wax walba oo maskaxdiisa ka maaga uu samayn jiray anigana midaas run ahaantii ma jeclaan jirin dadkoo dhanaana sidaas ah sidaas ayay ku dhaqmaan micnaheega laakiin shanti sabab arrintaasaad ku tidhi aniga ninkayga ayaa sidaas samayn jiray saas ayuu ku dhaqmi jira micnaha maanta waa maalinta koowaad ee janawari maalmo cusub rajooyin cusub iyo riyooyin cusub run ahaantii aniga waxaan ku soo aruuraybo tom iyo gabadhayda yariistaha anjel ayagoo keliya ayaan danayn jiray labadoodanba ka fikira wax kala mahayn aniga noloshaydan waxaan rajaynaa mar walba sidaas inaan isku ahaano Hello.
taliya waxba ma dhicin iska dhaaf run ahaantii aniga waxaan rabay in aan iska joogno laakiin asaga wuxuu yidhi waan wadaya bannaanka aad ku soo wareejinaya aadan arrintaas ugu farxay baabuurkeena markaan ag imaanin baabuurkuuba halaysan yahaabo kadib waxaan rabay aniga tagsi inaan waco laakiin asaga bajaaj ayuuna saaray arrintaas waan ka helay run ahaantii maalintaasayta aniga magaalada dhanaan ku soo wareegaan ku dhahay meel walba ayaan si raaxale u fiirsanayay walaashayna markii ay yidhad sidaas camal ay ii wareejin jirta waan soo xasuustay run ahaantii cabbey markuu bajaajka igu wada asaga meel kasta oon jecelaha uu ii tusi jiray aadan anigana ugu faraxay run ahaantii maanta yaraantayda ayaan soo xasuustay run ahaanta aniga waan cabsaday toomna waxaa laga soo sheegay jiro beerka ku dhacdo kadib asaga natiijadii markii ay soo baxday asaga aad ayuu u walwalay anigana murug ayay igu haysay arrintaas هذا هو متاس حبي توم إيه ترون إيه مالو البو استقال جيران توم أساق مالو البو سي أقلاق حما أيو هاد لي جيري قفك كلا ما عرقتي أساقو نينا أيو مرول بحشوناي تروم شو سهل سارة إن أساق تومنا عبتان بدن أيو كدرقي حفلدن وو آذي أذيك مركا ma soo wadi kartaa ana keligiis baabuurka ma uu wadi karo markuu saas u cabee okay waxbaan ka walwalin anaa soo wadaya anaa kuu keenaya waaya waa mahadsan tahay asagana wax walba u sheegaa markuu ii imaado anaa kana dhacsiinayo hay waa isku leenahay asaga wax walba markaan u sheegay runtii gadaal ma soo fiirin wuu cararay qof kale maahan waa taruun jandarhaasi kaalay saaxiib soo dhawaaw seeta saaxiib waan fiicanahay adigana waan fiicanahay ma baxnaa waa maxay aqi fudadkan kugu furan febray ma dhalatay cabitaan haweenay u kaadi tom maxaa kalena saaxiib war wax walba waan isku dayay laakiin siday ahaataba anigaa xalinayo maya looma baahna waxbana hasribin waa caadi wax walba aniga waa isku dayi karaa inaan sameeyo cabitaan isku daldaloya maxaan sameeya marka waan ku baryaaya adiga isku day inaad soo wado waa isku daya igaraal noqda asxaabe tom nabadi gurigan aadina cabitaan cabinaano naga dhaafno cabitaanka ka joojiya bes intaan ka bada dembi waay warniyo ditoorka soo kuma diin cabitaan badan nagacmin igaraal noqda adin kale soo baxna keen marka intaan ku eka cabitaan war adiga kale aabahayga ma tahay war yaa qafiir hadalkayga war adiga meeshaan buuqu ku cinayaan ku dhawraa isdejiya cagaada hoostooda ka soco soo soco ku dhawar marbe sidaa u jiraan iska dhaafe waa saaxiibkayga iska dhadhigaan marka qaarno ukaade ninkan hooyadiisa had kahor meel cidlaa ugu tagta kadibna anigaa soo koriyeyna ma fahanteen marka ninkan xoogaa doqoma waana waalayahay iska daaya marka raaxaysta anigoo keliya ma ahan asaga qof kasta ayuu si xun ula hadli jiray toomkayga hore asaga wuu isbedelay tari markaas markii ugu horraysan arkaya waa tom oo noocaas u hadlaayo macnaha aad iyo aad ayuu u caraysnaa ani asaga hore isku dagaalsanayn laakiin saaraa madaxeedaan u wada hadalnay marka wax dhibaata maa jira tari maya wax dhibaata ma jiraan iska baashaal inakeen toom asaga caafimaadkiisa ma uusan ka fakeri jirin asaga baaritaankiisa markii uu soo baxay ayaa waxaa la ogaaday beerka in uu ka jiran yahay markuu guriga imaanaya wuu cabsanaan jira dhakhaatiirtan cabitaanka iska dhaaf ayay dhaheen iyaga toom
adiga haddana mar kale maa soo cabtayna maxaa kugu dhacay ditoorka nanada adiga arrimahayga kama hadli kartid aniga iyo gabadheeda haddii ay asaga wax dhiba soo gaaraan annaga cidla ayaan dareemaynaa run ahaanti taas ayaa aniga xanuun aad u weyn igu haysay aadaan uga walwali jiray هاي هاي سيطي في عنها أنا أوه واو هاي aad baad u qurux badan tahay maanta yaa iga dhaafaya qaybootada igu dilne 5 sano ayaan ismooganahay labadeena soo ma ogeyd 5 sano ma ay dhahday arooska manjuulaa gabadhiisa ayaa isku keen dambaysa 5 sano ma ahane waa 5 sano iyo 4 bilood soo ma ogidna adiga ma ilowday oo waa ilowday marka lagu leeyahay gabar aqli badan waa gabar aqli badan hay maxaa ka wadaadan hadalkaas ii sheegba oo adiga hadartan booliis ataa soo ma sabab aniga keligay ma adiga xataa dhakhtarada tahay laakiinse waa sii yaraata markaan oraa kaftan iga dhaafiya aniga hadda naag weynaan noqday gabadhayda xataa aroos waa soo ma ogid waxyaabaha igu dumarka iga joojiya mideeda kale muhiimadda aan ka hadalnayaa 8 saac bar aniga meel ayaan u socdaa waan daahsanahay lakashmi kiis ayaan daba socdaa waana igu adkaaday kiniiniyashan ayaa lay turxan bixi waayay meel buwaan tegey marka waxaan rabaa maadaama dhakhtarada tahay kiniiniyashan inaad ii turxan bixiso waxaa laga yaabaa kiiska waxyaaba ku saabsan inaan meeshaan ka dhex helo please marka googlaha xataa waan weydiiyey balse waa aan fahmi waaya adiga 5 sano kadib ayaad ii timid yaqee inaa ii imaadmeen masad hadaa ii soo dirleed waa kaaga soo jawaabi lahaa furiin haddii aan kuu soo diray see wejigaadii qurxoon aanu arki lahaa see waay master ganeesh naga daa yaqee warka aawadiyaa jooji bas marxaba hawshaada wada kaniiniyashan liitam ayaa la dhahaa kaniiniyashan waxaa loogu talagalay qofka maskaxda buuqa uu uga furan yahay waxaa la rabaa markuu cabo inay maskaxda u degto kaniiniyashana dadkaasoo keliya ayaa isticmaali karo waan gartay marka ayada yaa waayana dhibanaha xaaskiisa ayaa kaniiniyashan isticmaali jirtay okay waxaa laga yaabaa iyada buuq far badan inuu maskaxdeeda ku furan yahay kaniiniyashan awood ayay leeyihiin awoodoodan waxaa loogu talagalay qofka maskaxda buuqa uga furan yahay inay maskaxda u dejiyaan xitaa magacooda waxaa la dhihi karaa maaniya waa loogu yeeri karaa hay 8 saac bar waa la gaara hadda waad i dhawaynaysaa soo maahan oo yaa diidan mahadsanid waa isku leenaa liiska dhakhaatiirta markii aan fiiriyey 2 dhakhtar oo keliya ayaa ku xusnaa oo arkay labadaas mid ka mid adiga waa la kulantay waad wareysatay laakiin midka kale magaciisana meesha ka fiirshay muxuu ahaa I think so dhakhtarka kale haa defraj ayuu ahaa doctor defraj ninkaas maxaad ula kulmi weysa maxaa dhacayna akhbaartiisa runtii aniga aada u niyad jabay
ilaa iyo goormee waxaan socdeen ilaa iyo sanad ayaa lay daaweynayay taasna waxay ku dhacday anigoo yar ayaan waalidkayga waaye midaas darteeda waxaan iigu dhaceen soo maahana haddana buuqa waxaa igu sii furtay maadaama aan aniga toon waaye waxaan rabaa jas hal su-aal keliya inaan ku weydiiyo ninka toon la yidhaahdo gabar oo xiriir la lahaa soo ma jirin bal ila wadaag hadday jirto arrintaa may aniga nafsadeeda waa macquul inaan ka shakiyo laakiin tom ma ka shakin kara asaga saara arrintan si noogu caddayn karta adiga maxaad ka wadaana maya ninkaas tom la yidhahdo dad badan oo la kulmaa waa nin qurux badan oo cirkaas jira say u dhihi kartaa marka hadduu qurxan yahayna micnahayga waxaan ula jeedaa toon ninka la yidhaahdo dad kale u xiriir la lahaa dabcan war maxaa dhacay sara soo ma nabad qabtid iga raali noqo mudane waan kaa raalgareyna waxaan aniga sameeyey taliya iga raali noqo laakiin macnahayga waxay tahay aniga tan waxaas in lagu tilmaamo ma ogolaan karo asaga dhimashadiisa wax yaraa kasoo wareegta soomaan dhib ma leh waa caadi gabadheeda gabadheed taliya gabadhaanayti waa aniga gabadhayda waa gabadhayda adduunka ugu jeclay oo gacalisideeda maanta buundooyin fiicanaan keena ma ogtahay sara waan sii baxayaa nabadee waa inoo waqti kale irisay jaaw baay adeerne hay gabadheeda waxaa cuntaba ku siiyaane cuntaba cunaysaa okay gacalisadeeda lakashmi waa aan la yaaba runtii maxaa waayana ayada wax may qarinaysaana hadalkayga sidaa kama wado ee waxbaa dhiman ma garatay qaabka iyada u dhaqmaysa sidee waay qaabka dadka kale aysan u dhaqmayn ayaa iyada u dhaqantaa waxaad moodaa qof kala dhiman sheekadan waday kafa ee gacanta ku haysata way doorto igu xanaaqday isla mar ahaantii way isbeddeshay gabadheedaa timid way shushumaysay dhaqankeeda marka waan ku wareeray si cajiibay u dhaqmaysaa qoftaas qof noocan oo kale u dhaqmaya weli maanaan arkin gabadheeda yartaa anjal ayaa i bartay waa aan salaamay iyaduna salaanta way iga qaaday marka dhaqankiianba la yaaba waa iska faraxsanayd waa midaan ka shakisanaha aniga ayadoo faraxsan goormee kuugu dambaysayna adiga ii sheeg bal saara hadda xaalkaada waa sidee aniga iyo tom si fiicanaan waqti fiican iskula qaadan jirnay haddaan soo xasuusto 2 jeer ayaan kulannay waxaa laga yaabaa niijabka iyada ku yimid marxaladda maskaxdeeda inay beddeshay marka borobaleen weyn ayaa ku furan borobaleenkaasna waxaa la dhihi karaa heebar maaniya cudurka saas ahaa jiro ayada daawada isticmaalaysa markaan aragno ayaan ogaan karnaa cudurka iyada waqti xaadirkaas haayo horta iyada mar way farxaysaa mar way xanaaqsan tahay mar nuuc kale u dhaqmaysaa iyada dhan jabigeeda wuu qaldayn si kale ayay tahay waxaa laga yaabaa ayada farxadda inay ka tan badatay dhibaatadana sidaas darteed ay u soo gaartay waa runta tan kale si uu uga soo kabsado qofka way adag tahay maadaama uu daawooyinkaas adag oo isticmaalayo waaya
gabar dheer oo aad u qurux badan soo maaha haa dhar nooc kale ay soo xiran jirtay iyada maraynii jabsaneed saas darteeda meeshaan u timid meeshaan iyada way imaan jirtay caawinaad ay weydiisan jirtay doctor aniga caawinaadankaaga baahanahay wax xun ayaa igu dhacay ma aqaano waxaan sameeyo inaad oyso looma baahno annagaa garab ku siinayno annagaa meeshaan joogno haye isdejiya adiga welwelkan iska yareey cidaa garab uga baahantaa annaga ahayn ma laha tartiib deganaan muujiya aniga mar walba waxaan isku dayayay inaan xaaladdeeda dejiyo dhibaato ma lahan wax walbana anigu waan fahansiinayaa laakiin mid ogow micnaha waxaa jirto markii igu dambaysay iyada xaaladdeeda way sii xumaanaysay aaday u liidatay shan daqiiqa kadib waa kuu soo laabanaya adiga meeshaada sii fadhi waayahay xalkeeda waa sidee iyada dhibaatooyin badan oo haystaa jiro dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah reerkaadoon garab ku siinaynin ninkaagoo buuq kugu furo waxyaaba halis badan waaye qofka bini'aadankan dhibaato u keeni kara in la xaliyana aaday u adag tahay laakiin saasay tahay annaga daawooyinaan ku xallin karnaa kiiskan kiis aad u adag waaye macnaha kiiskan qofka shakhsiyaddiisa bes ma isbeddelayso ee qofka mar walba dabeecad cusub ayuu la soo baxayaa halo waxaan rabaa riboodka shaybaarka ka soo baxaynaa ogaada haa riboodka u baahanaa okey waaya isfududee marka kiiskan wuxuu noqon karaa mid qofka shakhsiyaddiisa isbabeddelayso waa cudur faafa waxaan loo yaqaanaa hobby meena laakiin aniga ma ogi middaas kiiskan kiis iska caadi maa oo shakhsiyadda bes quseeya laakiin waxaan u aqaanaa kiis qofka shakhsiyaddiisa wax badan isbabeddelayso ataliya isbitaalka saa oogu soo laabaniba murugle kaa muuqata maxaa kugu dhacay sidaas maaha aanan kiis walba oo innaga gacanta aan ku hayno waxaa loo baahan yahay caddayn inaan keenno waana qasab naveen beriya fantesh taaruun zara iyo reena 6daas qofood ayaan annaga haynaa 6daas qofood xafladda ayay joogeen waa xafladda ay ku arkeen balse xafladda habeenkii 1 saac markay dhammaatay meeshii aadayna layska rabaa ay waxay qabteen 5 qofoodna ka wada macnaha okay sababaa u soo dahay hadiidan sugada inaan ku soo dahnayno meeshaas fiican loo xalki karo run ahaantii meeshan waa la diyaariyey beelo saas miyaana wax walba annaga waan xalinaynaa beriyaa adiga sababa u soo soo daahayno hay dhalasho wacan hadiidaan kugu talagalay iga raal noqo mar dambe soo dahaya furee hadiid gabadhayda cabitaankan adinka idinkugu waa talagalay idin keenay waa nagu filantay bes waya boos Fadhiiso, fadhiiso, yaqaaniyo. looma baahno Iska fadhiiso. fadhiisano adi macnaha karaama ku haya Mahadsanid, okay hay taageeraysa hey guys hay mudan barf ma lagugu daraa Aha. okay ugu dar ilaa meeqaa rabtaa intaasay u fulan oo kasoo bes iga dhayaqay haydidili maxaa dhacay kan biryaan ugu talagalay ahoo qabso kanna mahadsanid saaraan ugu ahoo talagalay adigane aniga ma rabi maanta gabadheeda dhalashadeeda waay naviim tan adigan kugu talagalay midda kale mudane adigana midaan kugu talagalay baraf badana lagugu shubay cab teeda kale macnaha jees hala baashaalo jes saara iyo tom familkooda dartoodanu cabno hala cabo jees firi aniga cabitaan ii samayno ditoorka soo kuma dhihin cabitaan ma cabi kartid marka iska dhaaf maanta
maanta waa gabadheeda dhalashadeeda waa inaa cabbaa'i sameeye oon ku baryaa toom iska dhaafa iga cabine dayaaqoo ku barya adiga xitaa bes cabitaanka lama cabaayo saaraa dhalada waa inaad dhigtaa dhig dhalada dhaqso Ma saaraa warkayga maqal dhalada dhig ma dhiga ayaan ku dhahay nacdaamu maxaa kaa qaldan adiga isxakama yaaqay maxaa kugu dhacday niman baa tahay xisho sara isdeji wax yar tom sidee waxu jiraan ii sheeg fiiri gabadhaada si fiican u fiiri cabsida ka muuqato wejigeeda bal fiiri marka xanaaqaad xakamay ayaan ku leeyahay way fahantaa malaynaa xafladda maanta wayna qurux badanta markaa ku baryaa gabadhaa darteed noogu safar xafladdan hanaga qasin mi fahantay tom adiga wax la yaab la ayaad samaysay sidaas inaad ula dhaqantana ma ahayn ayada weliba asxaabtaada hortooda ayaa waxaa rabta kula dhaqantay maxaa waay saas teeda kale qoftaas xaaskaaga waay soo ma ogidna nafin xitaa waxaa aniga sameeyey oo kale ayuun samayn lahaa haddii booskayga uu ku jiri lahaa midaas inaad samayso looma baahno ayada waa qof maskiina marka waxaa ku fiican inaad yastid oo keliya labadayna waa ognahay miskiin inay tahay laakiin nafteeda naftaaday u baahan tahay dilkan horta waaba kiisakii diliiraana waxaan ka shakisanaa nafeen fantesh taroon iyo reena waxaan ku yidhina aamin sababtuna waad dareemi kartaa waxaan ku dhahayna macquul way noqon karaan xiriir haddii uu ka dhexey lahaa maaragti toom iyo xaaskiisa nafiin mar hore ayuu toom dili lahaa wakhti xaadirkaasna isaga waa la ceebay lahaa ma garatay taroon argoos ayuu u socdaa fankateshna wuxuu rabaa lacagta uu keliya teeda kale taroon iyo fankatesh si dhaqsa ayay u dhammaynayaan ma garatee laakiin nafeen isaga wakhti walba fikir kale ayuu iska dhaadhiciyaa arina kawanan taliya dabeecad lagu wareero ayay runtii leedahay waxaan kaloo hubaa inaysan ayada waxba ogeyn balse meeshan hal xalqo oo keliyaha ayaa ka maqan anaan si fiican u fiiri qoftaas markaad la kulmaysa dabeecad kale soomaysa lahayn ma fadhise biryaana taliya anan hore muu soo guursatay haa taliya dumarkaba adaa iga aqoon badan maxaad iga su'aalaysaa runtaa taliya ilaa hadda caddayn gacanta kuma soo dhigin am sorry waaye cid maan ka shaki sacad 6 qofood ayaa xafladdan joogtay 6dana waan haya taliya weliba si saa'ida taliya 3 qofood ayaan ka shakisanaa tilaaba makaqaadida maxaa sugaya in sheegmo arrin baa jirta taliya oo cakiran maxaa waa in sheeg taliya runtii arrintan waan ku wareeray dhimashadan waxay iska ahayd dhimasho caadiya markay dhakhaatiirta noo sheegtay waaya dabadada dhakhaatiirta markay baaritaan sameeyeen waxay noo caddeeyeen in sun lagu dilay taliya fikirkayga wuxuu ii sheegayaa in ku talagal loo dilay muxuma fikirka laakiin waxay sheegtaa baaritaanka intii ku guda jirtay waxaa uris iyo waxaa ka shakis ama jiraan in sheeg 6 qofood ilaa 7 qofood ayaa sanadkii la soo dhaafay taliya isdilay bangalorna dhimashada noocaas way ku soo badanaysaa annagana inuu fudeedna qaaday ayaan taliya diidanahay
ad maxaa waa macnaha in sheeg bilan hadda taliya waxaan huba ma jiraan waan iska qiyaasaya oo keliya asaga shaqadiisa markii laga soo tagay wax kale ayuu ka murugsanaa taliya ninka tom lagu magacaabo noloshiisa waa iska wanaagsanayd saan warbixinta ku hayno taliya tom ninka leeraa dhaqaalo daro horta ma aysan hayn xaas jecelu haystay iyo asxaab hal gabarna way u joogtay kadib waxaa laga sheegay beerkii inuu xooga ka jiran yahay xaaladii isku qasay wuu wareeray cagaarshowliya masku dhacay xagga cabitaanka u batay xaaskiisa xataa cadaadiisay saartay ereyada ay ku tiraahdo ayuu taliya ka xanaaqay qorada shaybaarka markii loo geeyna waxay yidhaahdeen ninkan caafimaadkiisa ma wanaagsano waa khatar kadib waxay noo raaciyeen iska sugay yidhahdeen ilaa iyo caafimaadkiisa tamaamu ka noqonaya warqaddana annaga idin siinayno qandhaacaysa koodhe sheekada ay soo gabagabay waa kaa tago waaya taliya allah ku caafiyo tali qolada shaybaarka waa imaada eeg run ahaantii suntan aniga markaan arkay sun fudud ilama ahan teeda kale waxay ila tahay aniga laba arrimood in loo isticmaalay suntaasi qofkii loo isticmaalana lagama yaabo inuu u badbaado bini'aadinimo ma fiirin qofkaas sidaas sameeyey arrintan iyo arrinta toon waxbaa iska quseeya haddabaxan way iska galeen suntaana run ahaantii waxaa loo sameeyey si la yaab leh oo markii hore waxaan u malaynayaa in laga dhiga kiiskan dhimasho caadiya masaasaad leedahay meelo qabtaa ra'yigaas waa adiga runtii laakiin asaga laba shay ayuu isticmaalay waxyaabo ka kooban sodium condect iyo wuxuu isticmaalay warfi labadaas waxyaaboodna beerka ayay burburinayaan teeda kale sunta ayuu ku dhex darayba ka waran asaga ninkaas dilaayga run ahaantii tom beerka in laga haayo wuu la socday kormeyna ramana waxaa la sheegay shirkaddiina mariina inuu isku dilay wax ma ka jiraan mase waad beeninaysaa miss rena cuntada adigaa dalba soo maah tom dhimashadiisa maxay kula taadi nafiin arrintaa ma ka warhayaa tom hadduu dhinto shirkadda faa'iidadeeda iyo waxyaabihii kale uu lahaa adigaa qaadanaya soo maah iyo jawaab sooma saxni mar rabtid miyaa inaad ogaato dhimashada tom ciddii ka dambaysay waxaanoo dhan waa wax laga soo shaqeeya sooma waad saxanta adiga waa sidaas sara fariiso fadlan hadalka maqal taliya aniga waxaan u malaynayaa adiga in aad qadlan tahay maxaa yeele taruun arrintaas asaga kama suurtoodo midaas ma samayn kara aadaad u qaldan tahay taliya adiga wax ma ka og tahay taarun inuu dilo ninkaa aniga agteeda noloshada muhiim ayay ka ahayd aad ayay u nijabsanayd ayada waayo tom ayaa si xun ula dhaqmi jiray aniga hooyaday qof xun ma ahayn aabbahayna waxay ugu tagta hooyaday dhaqanxumadiisa aabbana maalintaas hooyay baxaysa ima raacsiinin mar kastoon tom fiiriyana aniga aabbahayga ayaanba ka dhex arkaa run ahaantii saaraana inaan aad ugu soo dhowaad ayaan jeclaan jiray aniga waxaan isdhahay wax aan hore u waayey in aan mar kale helaayo ayaan iska dhaadhiciyey waxaasoo aniga hore igaga lumayn taliye bangalor waa annaga magaaladeenna dundidan aad u jeeddaanna maxaa ka qaldana asiga runtii aniga ayaa ugu sarreeya markaad jiifanayna safar dheer ayaan aadaa mister finkii aawena runtii asaga arrin muhiima ku maqan yahay runaantii mar kasta iyadoo keliyan ka fikri jiray markaan arko qofkaan jecloo la dhibaataynayo runtii ma dulqaadan karo
dulqaadka dhan iga tagay runaantii toon markuu cabitaan badan soo cabo saaraa si qaabdara ayuu ula dhaqmi jiray anigana runtii middaas ma ahayn midaan u dulqaadan karo oo dulqaadka ayaa iga tegi jiray mis saaraa hay taran fiican subax wanaagsan subax lamid ah saaraa qoorta maxaa kaaga dhacay maxay dhahdeen qoorta firita kaaga taali qoorta maxaa kaaga dhacay ii sheeg bal waxba maaha taran taran waan is arki doonaa okay bye bye mar walboon isku daya saara inaan u soo dhowaado tom ninka la yidhaah cadow ayuu iga dhigan jiray mar walba markaas kadib tartiib tartiib ayaan ugu soo dhowaaday markaas waxay ka dambeeyeen si toosaanba ugu soo dhowaaday saaraa runtii aad ayay u nijabsanayd ayada mar walbana waxay dhihi jirtay waan isdilaya aniga dunidu kuma noolaanaya saaraa aniga noloshaan intaa ku noolaalaa inaa iska dhinta ayaa ii fiican aniga inaa isdila ayaa ii fiican saaraa maxaa ku hadlaynaa asaga sababa aniga sidaan iigu sameynaa saamaxo ila dhaqmaayaane tarun adiga sun ma ii keeni kartaan aniga inaa iska dhinta ayaa raba waa ku baryaa sun ii keen nolosha dhan waa nacay aniga inaan dhintaa iroon inaan dhinta ayaa ii fiican aniga markaas kadib waxaan isku dayay inaan wax ka dhaadhiciyo balse ayada way igu gacan seerta waana igu war qaylisay iga tag aan ku dhaa iga tag maalintaas wixii ka dambeeyey saaraa ilma aysan hadlin si walban ula hadlo hadalkayga waa iyasi jirtay meeshan joogana way ka dhaqaajin jirtay ayada middaas runtii aniga qalbigayga ayay dhaawacday waxaan isdhahay waxaasoo dhan tom ayaa ka dambeeyo markaas ayaan go'aansaday toon sidiisaba inaan u dhammaystiro oo aan dunida ka masaafriyo balse dilkiisa aniga markaas ima uusan qorshaysnayn isaga saaraan markuu gacanta u qaaday markaan joogna xafladda dhalashada runtii aniga middaas waan u dulqaadan waayey waa soo noqonaya aniga
aniga ayaa dilay asaga. Sara, siduu waxaas ku samayn karaan? Siduu ku samayn karaa waxaas? Dhaqanka siduu u sameeya waxaas? ma waxaad rabtaa inaad ii sheegto ila wadaag? filimkani waxaa lagu tarjumay astaan filmis. miyaadan xishoonayn doqonyo? maxaad u samaysay? weliba adigoo xaasilo ah ayaad waxyaabaha fooshucun samaynaysaa. uf. maxaad la murugaysan tahayna? taaruun dembigiisa wuu qirtay. wuxuu sugayaa waa ciqaab oo keliya, ciqaabtana waa la marsiinaa. waan fahmi karaa, taaruun reerkaada ayuu ka mid ahaa. tan micnaheedu waxay tahay aniga xataa aad dusha layga saaray ku fiican tahay. aniga xataa toon dhimashadiis sabab ayaanu ahaa. run ahaantii aniga xataa markuu toom si xun iila dhaqmaa waanu dulqaadan waayo. marka naftarkayga mas-uul ayaan ka ahay dhimashadiisa. aniga qaladkoo dhan qaladka adiga malihid aniga iskale. waxaana waxaa sababay saaraan iyo jabkii soo gaaray, ma garatay? isadkay saara, nolosha sideedaba u wejiyaal badan tahay, oo ma garatay? waa kuu hambalyeenayaa sababtoo ah adiga waxaa tahay ninka ciidanka ugu fiican. sidaada ku soc ayaan ku dhehi lahaa. ninka toosanna saanaa lagu yaqaan. waya taliyo mahadsanid. ninkayga Tom, adiga waad u qalantay inaad dhimato. noloshaydoo dhan ma aragtay. adiga ayaan aniga kuu hibeeyey. laakiin adiga
laakiin adiga noloshaada dad badan ayaad u quruxay qeybisay waan ku salaamay waan kaa qaaday magacaygu waa tom neena oh indhahaaga way qurux badan yihiin runtii caadi ma tiid tom runtii waa ka macmacaan waxaan rabaa inaan ku tusiyo waas arkaynaya baay soo bax yaaqi adiga yaaqsa waxaan rabaa inaan ku tusiyo wax aan ku tusi rabaa ku dhaha lama filaan khatar leh ku ahaadaya hadeertaan fiir ay yaa ku keenan khatar gabadheeda oo gabadheeda saa u qurux badan tahay le beel adiga yaaqi aada u qurxan tahay gabadheeda tom fiiri tom asaga naagtaasoo keliya ayaa u caddayd aniga iyo gabadheeda nolol farxad leh nama uusan siin jirin hay tom aniga maanta waxaan ka fikiraya mataqaanaa banaanka inaan isku raacno oo ani adiga macmacaan khatar aan soo cunano saaraa igraari noqo macaantadayda shaqa muhiima ayaa hadeer ku jiro aniga yaaqay caadi waay tom midaas gacalka waan ku jeclahay Bye. aad ayaa u soo daala runtii gabadheena ma jiifatayno shir isdabajoog ah ayaa ayaantan ku jirnaa saas darteeda ayaa aniga xilligan guriga u imid shirka gaariga dhexdiisa wuu ka socday hay miya aragteen adiga adigaan ku arkay adigoo faraxsan oo gaariga wadid weliba aniga ma iga shakaysa gaclayso qoftaasi waa isla shaqaynaa oo keliya tartiib ukaadi saaraa kaalaya iga foqaan ku dhahay adiga ma waxaad aaminsan tahay waxaasoo kale aniga inaan samayn karo saaraa soo ogid waan ku jeclahay aniga nafiir saacadan gacantiisa ugu one soo minute baxay ukaadin okay one second beriya waa sii tegaya waa mahadsantahay okay bye bye nin waa sii bixi kowli marka la sarki doonaya iyo bashaal waxaan soo gadanaa waan kuu soo noqonaa okay dheh kan iyo kan iyo kan hal daqiiqo u kaade habeenkii oo dhan aniga waan iska ooynaayay ugu dambeyn go'aan waxaan ku gaaray aniga dartay iyo gabadhayda yar darteeda inaan wax walba iskaga iloobo oo nolosheen keliya aan fiirsada aniga
saaraa teleefoonkayga isii ayaan ku dhahay ha isku dayin mar kale gacantaada inaad saarto teleefonkayga waad qiyaamaysa soo maaha khiyaano ah waxaa ku hadlaysa waa maxay adiga tom aniga wax walba waa ogaaday gabdho badan ayaad la socotaa haddaa la socdane weliba aniga wax walba waan ogaa gabar aniga ii dhow oo saaxiiba ana ayaad adiga la socotaa marka bannaanka maa ka qaraabta gabadha ii dhow maxaad ka rabtaane anigoo nool haddane adiga waa iska nooshahay oo keliya laakiin aniga xaggayga waxba kama tiid waa iska nooshahay oo keliya macnahaaga muxuu yahayna ha waxba kuma qaban karo maxay dhahdayna maxay dhahday sheeg si fiican ii dhegaysa adiga waxaan ku dhahay waxba kuma qaban karo tom aniga haddeertaan kuuma baahni ma garatay adiga maxaa ku hadloosaana tom maxaa ku hadloosaa adiga maxaa ku hadloosaa yaaqaani maxaa sameeyaa maxaa sameeyaa aniga hadda maxaa sameeyaa aniga maxaa sameeyaa aniga tom adigoo keliya maahan aniga xataa hadda waxaan ogaada qof adigoo kalea in uu jiro asaga famil qurux badan uu lahaa xataa xaas qurux badan ayuu lahaa oo wax walba ka dhagaysanayso laakiinse waxaas dhan asaga uma uusan jeedinba sidaadoo kale ayuu ahaa soo sax maaha torom adiga mid ma og tahay aniga intaan kula joogo jaceylaan kuu sii qaadaya aadan kuu jeclahay ani markaan kula sheekaysanay deganaanaan dareemaa halo adikaare meeqa maran ku soo wacay maxaa kugu dhacayna maxaa kaa qaldan markaan kulanno kadib wax walba anaa kuu sheegaa haye maxaa kugu dhacayna adiga waad ogtaa teleefonka inaynan ku wada hadli karin laakiin waan kulmi karnaa soo maha tom waxaan hadduu ogaado ogtaa booquu abuuraa anigana ma rabo arrimaheena asaga inuu ogaado ma fahantay dunidaanayti anigii adiga haddaan is haysano intaasaaba igu filan intana jiifan ka hor aniga hami ayaa leeyahay hami ayaa leeyahay dabeecadaan weligay ku arkin ayaan aniga ku arkay habeenkaasiita asaga
aniga waa murugaysnaa kadibna tom wuxuu rabay magaalada inuu iigu soo wareejiyo bannaanka haddaan imaanayna baabuurkeenoo halaysanaan aragnay tom aad ayuu u xanaaqay kadibna aniga tagsi ayaan dalbay asagana bajaaj ayuu rabay inuu isaaro bajaajkana aniga aad ayaan ugu farxay saara jirrada adiga ku haysa baybolar ayaa la dhahaa qofkaas aniga ma ahayn buugayga aniga meeshaas ayaan ugu tagay si taliyaha baarista uu u arko anigana sheekadaas aan ku qoray waa been taliyaha inuu ku wareeraan rabaa waan ogahay zaara ma samayn karo waxaa laga yaabaa tom inuu meeshaan joogo aniga ma rabi inaan sii noolaado inaan dhinta ayaa raba aniga inaan isdila ayaa raba هاي سارة أحب السعاد معها سارة أوكي سما وحبه aniga intaan ka badan uma dul qaadan karo waan dhimanayaa سارة waxaa ku hadlo sujuudi bal ya akhi adiga ayaan waddo kaa dhigtay toran si aan toom ugu dhammaystiro هي فندنا seetahayna soo ficnay haye soo dhawo bal see tahay waa fiicannahay waa fiicanahay aniga hay waqti hore igu ka dambaysa aniga inaan ku arkay aadan ugu faraxsanahay tom aniga xataa sidoo kale waqti badan waa hal daqiiqaan kula hadlay iraan maqayaadne ay ardada daykadiya tom maanta gabadhan dhalashadeedu waa hal daqiiqa xataa si fiican u dhaqan maxaa ku hadlaysa adiga هاي يا قاعد شكانسك ماشان أكو تكجوجي كودان دلش هذا واي صح صار نيجا هيجا إحنا جن أيام كراح ورسعان كراح توم ما أنت كلمة هذه عبيس أنا محكو كراح وما حيدبك كويس سارة سبب أدي دبيسة هاي سودو سيطان عندي قرب بهتي سوا قلبه هاي dhegeyso aniga xitaa lacabitaan ii sameeyey tom adiga maxaad samaynaysaa ma wala toriya
run ahaantii hadeertaan toom aniga deganaanan dareemayaa waxaa jira sheekooyin oo aniga iskay aan u samaystay sheekooyinkaasna hadeertaan aniga aadan ugu nasanayaa waa sidaan aniga keligay ogahay cidna ilama ogo gabadhayda buugaan adiga ayaan kuugu talagalay toom asaga aabbo fiican ayuu ahaa adiguuna kuu ahaa teeda kale nin fiicanna wuu ahaa laakiin si kastay ahaata aniga ma rabo marnaba hooyada inay aabbahaa disha adiga in aad ogaato sheekadaanna sir ay ahaanaysaa